gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta oo axada ugu baaqay madaxda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka inay si dhaqsiya wax ugu qabtaan dhammaan dadkii ka soo barakacay deegaanadii la gubay xilligii colaadaha. In ka badan 1500 oo qoys oo danyar ah ayaa ku dhibaataysan gudaha degmada iyagoo dul saaran qoysas kale oo danyar ah. Gudoomiyaha ayaa sheegay in aanay haysan wax guryo ah maadaama guryahoodii la gubay. sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in lagu jiro waqti adag iyadoo waliba beerihiin ay abaarsadeen. baaqan ayaa imaanaya xilli goordhow lagu wado in loo fariisto shirka guud ee dib u heshiisiinta ka oo la filayo in looga gaaro xalkama dambaysa. maanta igu kalifay inaan media soo fadhiisto ayaa waxay tahay oo degmada Walaweyn waxaa ka jira dhibaatooyin badan. dhibaatooyinkaas ay ka mid tahay oo dadkii ka soo barakacay sagaalkii tuulo ee 5 ka mid la gubay 4 ka mid laga soo barakacay ayaa waxay dul degan yihiin degmada Walaweyn. markii lagu qiyaaso waa dad adiga 1500 ilaa 1700 oo qoys aan dhig karo oo ay dul degmadii qoysba qoys dul saaran. waqtigan waa waqti hadda aan beerihii ay abaarsadeen iska dhib badan oo sida daraadeed waxaan rabnaa hay'adaha gargaarka iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya dowladda Koonfur Galbeed inay arrinkaas wax ay nagala qabtaan sababtoo ah oo qoys isku filan maanta ma jiro. dadku waa beeraley waa xoololey qoysaskii soo barakacay ku hanti beelay ku guryo beelay meel ay xataa jiifsadaan aan lahayn ayaa waxay joogaan magaaladii oo dhibaatadii way sii saacidaysaa qaxootigii soo qax ay jiraan waqti abaareed lagu jiro. sidaa daraadeed waxaan go'aansanay inaan warbixin ka siino oo mas'uuliyiinta ugu sarreysa Koonfur Galbeed sida madaxweynaheeni oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dhammaan cid kasta oo Soomaaliyeed ee garanaysa oo dhibaato haysata walaalkiisa. waxaan markooda mar labaad ku celcelinaa in gargaar degdeg lala soo gaaro dadka ku dhibaataysan gudaha degmada Walaweyn ee ka soo barakacay tuulooyinkii la gubay iyo kuwii dariska la ahay oo hay'adaha gargaarka ama hay'adaha wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed ama tan federaalkaba oo codsiyo badan aan idin geysanay in badan aan idin la hadalnay waxna loogama qaban. cudurkii oo wuxuu ku sii fidayaa deegaano badan ka mid ah degmada Walaweyn. arrinkaasna waqti wax la qabtaa markii wax qabadka uu taagan yahay mar taladu gacan ka baxdo wax ka baxdo wax lama qabto. sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan ay gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan degmada Walaweyn dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kala qaxootigaba. sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu tacsi tiiraanyale u diray dhammaan ehelkii ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku dhintay qaraxii ka dhacay inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo Afgooye. dadka qaraxan ku dhintay ayaa waxa kamid ah dad ka safray degmada Walaweyn rabeena inay gaaraan Xamar halka qaar kalena tacsi ugu soo socdeen degmada Walaweyn. mid labaad waxaan ka tacsiyeynaa dhammaan dadkii shacabka ahay ee waxba aan geysan lagu laayay oo inta u dhaxayso Afgooye iyo ceelasha biyaha. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan leeyahay inta laga dhimatay naxariis jira Allah siiyo gacan idinka xaq daran ayaa idin dishay insha Allah jaazinteeda waxaad ka heli doontiin Allah idin abuurtay intii waxaas geysatayna kulay ma faa'iidi doonaan. laakiin waxaan leeyahay markooda marlaad mar saddexaad intii dhimatay naxariis jira Allah siiyo intii dhaawac Allah u booglayo oo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Cabdi Qani Maxamed Xasan Walaweyn.